السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتو وعنا وناكسن دمانتين بإيد الحانتين ملو البدونية دعالي ذا كتشوكتان وحني لنا هاي برتا أدبيرك وشيفتان من نقول سلامنا هاي ما توا بهدي هب فيلمس أو إنيسي ده برنامج عصب برنامج كاس أو لما قعد بحي كفتن يا قراحو كاس واحد هذه هنا يا وأنا جو سمير عبد الرحمن عوالا كنا ما قاعد سمير أفتنه ولا شيء حب حرقنا ويلا هذه هنا سا waxaanu dadweynaha weydiinaynaa mataqaanaa barnaamij kan hordhac u yahay fiidiyogan maanta duubayno barnaamijkaasi wuxuu hordhac ugu yahay barnaamijka kaftan iyo qaraaxo waxa hordhac u ah su'aasha aan maanta dadweynaha la dhaxmari doono boorama ku nool kulay tola caawa insha Allah hadii alla ina gaarsiiyo waxa weeyaan sanadkii cusbaa 2021 waxaanu ka baxaynaa oo maalinkii last day aanu ku jirnaa 2020 waxaadaba waxaan dadka la dhaxmari doonaa oo weydiin doonaa waxay 2020 kala kulmeen iyo xusuusaha uu ku reebay iyo waxa ay ku xasuustaan iyo 2021 waxa uu qorsheysan bal hadda walaashan xubbi xaragaan ugu wareejay mikrofoonka aad mahadsantahay walaalkay afjano aad baan mahadsantahay waxaan xaq salaamayaa asxaabtayda aad ka noogu xidhan habi films sida hore u soo sheegayba magacayga waa xubbi faarax ibraahin xubbi xaragaan ku magac dheerahay marka insha Allah waxaan maanta saa hore leedin ku soo sheegayba waxaan idin wadnaa maanta codsigiini insha Allah waan rajaynaa dhawaan isaga idin tixgelino laakiin taa maanta waxa ka soo hordhacay maxaa la dhadaa hordhacan kale oo sanadka cusub oo maanta ma sha Allah insha Allah caawa sanka inagu soo haya oo isagana soo dhaweynayno waxa kale halkan aad iyo aad uga salaamaya asxaabtayda YouTube channel-kayga ku xidhan ee habi films aad iyo aad baan idin salaamaya meel kasto joogtaan insha Allah dhawaan ayaan bilaabi doonaa isla socod wanaagsan hadda waa tahay bartaan nagala socotaana waxa weeyaan waxaan xusuusinayaa bartaan nagala socotaan waa bartaan ku leenahay YouTube-ka habi films ha moogaan in subscribe noo saarto aad ay tahay markii kugu horeysay aad channel-ka soo booqato hadii aad hore noogu saartayna aad baad u mahadsan tahay fadlan hadaba like baad saaraysaa fiidiyoga hadaad ka heshay siina share garee si uu dadweyne badan u gaaro oo barnaamijkan uga soo qayb galaan barnaamijka kaftan iyo qaraaxo oo ku magac dheeraan doona kaftan iyo qaraaxo hala isla socda hadaba barnaamijka waxa inoogu furmayaa sida tan waxay la joogaa haddana wiilkaas oo weydiin doono sidaan horey inoogu sheegayba su'aalihii iyo kaftankii inoo sii socday waxaan haddaba weydiinayaa marka hore waxaan kugu soo dhaweynayaa channelka Happy Films barnaamijka ay wadato ee kaftan iyo qaraaxo la magac baxay barnaamijkaas oo ah in dadweynaha boorama ku dhaqan la weydiiyo qof waliba shucuurtiisa aan ka weydiino maanta hordhac u yahay barnaamijka kaftan iyo qaraaxo fiidiyogani marka waxaan ka weydiinayaa shucuurtaadii 2020 wixii aad la kulantay iyo wixii kugu la yaabka badnaa adigoo ku bilaabaya magacaaga بسم الله الرحمن الرحيم magacaygu waan macaan xaash cali walaal aad iyo aad baan u dhawahay channelkana aad iyo aad baan ugu dhawahay marka horta sanadkii tagay ilaahay nimcadiisa hayna dhaafiyay laakiin sanadkan nimcooyin badan buu ahaa waxa wada barnaamijyadii oo dhan baa crash naga wada noqday laakiin insha Allah sanadka soo socdana waxay noo qorsheysan wixii 2020 qabiyoobay inaan 2020 qabiyo tirno insha Allah صح waa tahay hadaba maxaad ku xasuusan doontaa sanadkii 2020 san maxaa kugu la yaab badnaad ku aragtay horta waxaan ku xasuusan doonaa waxa ku bilaabmay waxa la yiraahdo ma aragtay faraxalo iyo afka xidho corona virus wuxuu ku dhamaaday faakaysi ku dhamaaday waa tahay waayo walaalad haddana waxaan la joogaa wiil dhalinyarta reer Soomaaliland kamid gaar ahaan gobolka Boorama minkana insha Allah isaga ayaan waxoogaa su'aalo aan weydiin doonaa assalaamu calaykum وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. kusoo dhawow barnaamijka qaraaxo وندوي آدم وندوي. magacaaga walaal مقعي سامي عبد الله برخد. okay walaalo insha Allah waxaan ku weydiinaynaa su'aalo ku saabsan sanadka isla mar ahaantaana waxaan ku weydiinayaa sanadkan hore iyo sanadka insha Allah kan dambe waan gaari doonaa laakiin isla kan imikayna dhaaf maxaa ku xasuustaa كان والله يا ذو دباتوي في رمضان مقرانسا. صح يا ذو كم ده ولا اسم مقرانسا. وحتى العقل عم بدع يا. هاي. تقضي العقل حتى نسين شري. كورونا هذه تشربوا بقولي بريك علي. يا. بري ما تمادي. أفصل حلو بقولي العقل تكسيه أفكار كحنا سنقاسم مقرانسا. يا. حالة دي بعد كامل. بقولك بس لا كذي. لاقي سنة كسر صعدة. إن شاء الله. العقل بدن هلا نرجينا مقرانسا. إن شاء الله إلهي بنزل رجينا. قبل نيو ليجلس مقرانسا. هو حاسب ولا ده. أوكي. ما هرب بيربى اللي جواركو. عرض كورونا قبتها يقولي دعنا وحي قلت المقرانسا هذا ما أنتي مويدين يو سمارك المقرانسا يا حفظي مركان سواح اللي يقولين يو قبل يابسي قادو كورونا قبتها سكان قبل يقولين كلا لورسي قبل إن شاء الله وحنا لنا سود بعمل دواب الكرسي محا سود دواب تكتبه وصوت الله عيال كذا وروري جيابي يا waa tahay haddana waxay la joogaan laba dhalinyara labada dhalinyarta ana waan weydiin doonaa su'aashii aan dhaxwadnay dadweynaha Boorama ku dhaqan waxaan weydiinayaa walaal soo dhawow horta marka hore waan ku soo dhaweynayaa channelka Happy Films ku soo dhawow
waxay wadaan barnaamij la magac baxay kaftan iyo qaraaxo haddaba waxay ku weydiinayaan su'aashaasi oo ah 2020 ilaa 2021 ku saabsan 2020 haddaba adigoo magacaaga ku bilaabay marka hore magacaygu waa cabdiraxmaan maxamed xasan oo ku soo dhaweynaya saaxiib marka hore waxaan ku weydiinaa 2020 wixii aad kala kulantay se wixii kugu la yaabka badnaa inaad dadweynaha la wadaagtay 2020 adu wax weyn kulama kulmin laakiin de 2020 ma barkaysnayn horta sidiisaba sax bilaa barako waa haye sababtoo ah corona iyo wax balaayo iyo xanuuno iyo waxba watay xanuunadu way jireen ha ma garatay waxyaalo badan oo de aan hiigsanayo hamigayga iyo fikirkayga ku jireen oo iga dayacay waa tahay ma garatay waa tahay haddaba adigoo halkaa yar joog saaxiibkaan aan soo yar mariyo waa tahay haddana wiilkan ayaanu ku soo wareejin doonaa marka hore saaxiib qaali waan ku soo dhaweynayaa waxaan kugu soo dhaweynayaa channelka Happy Films barnaamijka ay kugu wadaan oo ah kaftan iyo qaraaxo marka hore adigoo magacaaga ku bilaabay waan dhowahay saaxiib qaali magacayguna waa maxamed axmed maxamuud saaxiib qaali waan ku soo dhaweynayaa waxaan ku weydiinayaa su'aashaas oo ah 2020 maxaad kala kulantay maxaa kugu la yaab badnaa waaniyo 2020 sanad aad u xun buu ahaayo sax de wuxuu watay adigu waad ka warhaysaayo ma garanaysaa xanuuno iyo ma garanaysaa cudurro iyo waxyaabo badan oo aan ku taamaynay uu yani naga kansalay gebigiisba sax waa tahay haddaba 2021 haddii alla yidhaahdo caawa ayaanu galaynaa last day baan ku jirnaa 2020 baa loo gudbi doonaa marka waxaan ku weydiinayaa waxa kuu qorshaysan 2021 maxaad rajaynaysaa insha Allah waxaan rajaynayaa 2021 wax khayr inuu ilaahay garanaysayo oo naga siiyo ajirkiisa iyo xasanaadkiisa ilaahay naga siiyo aamiin baa aamiin Allah inooga dhiga sanad bashbash iyo barwaaqo xambaarsan waa tahay adigaan ku soo wareega saaxiib waxaan ku weydiinayaa 2021 maxaa kuu qorshaysan maxaad rajaynaysaa 2021 waxyaalo badan baa ii qorshaysan ma garatay sax maxaa kamid ah waxa kamid ah waxyaalo badan oo de hamigaygu iyo fikirkaygu iyo higsigaygu uu yahay oo 2020 iga dayacmay ma rabaa dib inaan ka soo cusboonaysiiyo sababtoo ah waqtiga ay saamixi waayay markaa waa tahay sax waa yahay waxaan leenahay sanadkan inoo soo socda aanu rajaynayno ilaahay nooga dhigo sanadkii bashbash iyo barwaaqo ee khayrkiisa xambaarsan ilaahay nooga dhigo waa tahay haddana waxaan la joognaa wiil isagana sida kadaalika dhalinyarta reer Boorama kamid ah oo isagana su'aalo wax ka weydiin doona sad horeyba u soo aragteen marka assalaamu calaykum walaal calaykum salaam ku soo dhawo barnaamijka qaraaxo waan ku dhawo walaal aad baad maasantahay magacaaga adiga noogu bilaabaya wiilada Cabdullaahi Ciise walaal insha Allah halkan waxaan ka weydiin doonaa su'aalo maxaa la dhahdaa waad joogtaan filayaa dhowr la isweydiinayay oo marka insha Allah sanadkan iyo wixii uu aqabada lahaa iyo badhaadhaba wixii lagala kulmay ayaan ku weydiinayay walaal sanadka 2020 soo ha sanadka 2020 horta saamiintiisa wada aragtayo de sanad wuxuu kala xidhantay marka insha Allah sanadka cusub martiina wax fiican si wanaagsan xaaladiisuna way iska adkeyd baan filayaa insha Allah kan soo socdana kan wallahi dawaa sanad horta wali ka warami karnaa oo wali inuu ma horeey moogtay laakiin waxaan rajaynayaa inuu sanadkan sanad noo qurux badan noqdo aamin insha Allah inooga dhigalaan aad baad maadsantay walaalo assalaamu calaykum alaykum asalaam ku soo dhawo barnaamijka Happy Films way ku soo dhawaay magacaaga adiga noo sheegay Maxamed okay waayahay hadda waxay nala joogaa deerkeena waxaan weydiin doonaa su'aalo maxaa la radaa ku saabsan sanadka hore iyo sanadkan insha Allah ka waran sanadkan maxaa kala kulantay sanadkan khayr fiican ma kala kulmay wali caqabada toona midna kama arag okay waaya adeer waaya maxaad sanadkan maxaad ka sanadkan waxaan ku filayo ilaahay inaan rajayaan kana filayaa sanadka soo socdana Allah waraya insha Allah hay waadeer waa ma santahay laakiin waayahay wali waxaan ku sugannahay isla goobtii markii hore aan soo joogsanay ee Telesom taagteeda wali waxaan yara wadnaa barnaamijkii baa wadnaa insha Allah wadada jaamad darteed awgeed oo codadka badan ay soo gaadhayana waxaan rajaynaynaa ka raali ahaataan walina su'aalihii waan wadnaa insha Allah samirka badiyaan leenahay waa tahay dadweynaha ku dhaqan magaalada Boorama ayaan wali la dhax soconaa su'aashii ay shucuurtooda kaga bixinayaan 2020 wixii ay kala kulmeen iyo waxay ku xusuusan doonaan haddaba waxaan sii weydiin doonaa xataa waxa uu qorshaysan 2021 haddaba waa tahay isla socod wanaagsan ma leenahay uuna inoo sii socon doonaa barnaamijku waa tahay haddana waxay la joogtaa gabadh Soomaaliyeed oo kamid ah gabdhaha ku nool magaalada Boorama waxaan weydiin doonaa sidaad hore u ogeydeen ba su'aalaheeni hore inoogu socday marka hore waxaan ku soo dhaweynayaa channelka Happy Films su'aal ay wataan kaftan iyo qaraaxo barnaamijka la magac baxay marka hore adigoo magacaaga ku bilaabay
magacayga horta waxaa la dhahaa Hoodo Daahir Ibraahim dadka kor dalac arday dalacay Hoodo Daahir Ibraahim ku celiya xoog dalac codkayga intaas iga daayay xoriyar dalac soomayso magacayga waa Hoodo Daahir Ibraahim 2020ka 2020ka horta wax dhibaatooyin kale ma kulmin laakiin aad iyo aad maan faraxsanahay hamiga la horta waan gaadhay runtii xaqayga ahaan sax laakiin waxaan rajaynayaa inaan meel fiican gaadhay ما شاء الله waxaan ku rajaynayaa aniga sidoo kale inaan meel fiican gaadhin waa tahay waxa tir sanadka 2020 ani wuxuu yahaa sanad farxad leh hamigeygii baan gaadhay ma sha Allah baan ku leeyahay waxaan ku weydiinaa hadana 2021 maxaa ku qorshaysan se maxaad ka filanaysaa isaga horta waxaan ka filanayaa aan kulay farxad waxaan gaadho halkaan maanta taagana ilaa meel kasii waa tahay maxaad asxaabta kaga tagaysaa jawaab kaftana horta waxaan leeyahay waxaa dhaa garan maayo maadaama tiri sanad farxad leh iila buu ahaa maxaad bal la wadaagaysaa asxaabta dadweynaha ku daawanaya dadweynaha daawanaya كل واحد waxaan oran lahaa horta waa la soo wada eegaya horta waxaan leeyahay sanadkiisa ilaahay na gaarsiiyo bashbashiyo barwaaqo aad iyo aad baan faraxsanahay waa tahay imkan waxay la jooga wiil dhalinyaro oo dhalinyarta magaalada Boorama ku nool kamid ah waa sidaad hore ogeydeenba barnaamijkeenu guntiga gabagabadii ku sii socdaa waxaan weydiin doonaa sidaad hore ogeydeenba barnaamijka su'aashiisi walaalan kugu soo dhaweynayaa channelka Happy Films barnaamijka ay wadato ee la magac baxay kaftan iyo qaraaxo taasoo ah maanta waxaanu ku jirnaa last day maalinkii ugu dambeysay 2020 waa taa hadaba 2020 wixii waxaad sheegaysaa horta marka hore adigoo ku bilaabaya magacaaga bismillaahir rahmaanir rahiim magacaygu waa Sharmarka Cabdixakiim Axmed waxaan ka mid ahay dhalinyarta ku nool magaalada Boorama aad baad u mahadsantihiin ka Happy Films haddaan aragtidayda ka dhiibto sanadka gabagabada ah ee maantay 2020ga maalintii ugu dambeysay ay tahay horta sanadkaas wuxuu ahaa sanad dhacdooyin iyo events u gaar ah wata waxa kamid ah waxyaabihii ugu weynaa caalamkana oo ka dhacay in sanadkaasi lagu waabariistay xanuunka coronavirus oo adduunka oo dhan saameyn ku yeeshay haday xaq dhaqaale ahaan lahayd iyo waxyaabo kaleba sanadkaas markii aan aniga ka hadlo aniga shucuurtayda iyo arrimahayga wixii kugu la yaabka badnaa waxay ahayd anigoo magaalada Boorama kollayto anigu waxaan ku joogaa ardayda cilmiga u timi baan ahay sax ma sha Allah waxaan igu la yaabka badnaa magaalada Boorama aan ku arkay isla markaasna sanadkaas 2020ga aan ku arkay waxay ahayd magaalada bahalka la yiraahdo ayga hore ma soo aragtay mise wuxuu kugu cusbaa markaad Boorama timid wax aad igu qariib buu ahaa igu yar cusbaa kugu yara waa tahay adduunka inta sarnaana hal maalin ay arkay laakiinse waa markii igu la yaabka badneed aan arko ayal kooxa oo xitaa aniga weerar ugu soo qaaday marka qaarkood anigoon ka warhayn waa tahay 2021 hadaba maxaad ka rajaynaysaa maxaa ku qorshaysan insha Allah biidnillaahi alkariim waxyaabo badan ayaa ii qorshaysan hadii Allah awood leeydmo de qof walba yidiilo iyo wuxuu leeyahay rajo Ilaahay subhanahu wa ta'ala waxaan ka rajaynayaa yoolal badan aan leeyahay Ilaahay subhanahu wa ta'ala inuu ii rumeeyo ummadda islaamkana uu uga dhigo sanad baraare waxaan halkan fariin uga daray anigoo ka faa'iideysanaya barnaamijkan isaga ah walaalahayga caalamka ku nool ee muslimiinta ah waxaan leeyahay barnaamijkan sanadkan cusub waxyaabo waxa jidha aynu rabno inaynu ka faa'iideysano danteena aynu ku jidho sida inaynu horumarino wax kasta oo aynu qorsho iyo aynu la nimaano yidiidilo aynu sanadkaas aynu noloshana iyo mustaqbalkana ku maareyn karno laakiinse waxaan uga digayaa walaalahayga islaamka meel kasta ay ku nool yihiin in ay waxyaabo kale la yiraahdo Happy New Year oo kale ay dabaaldegyo sameeyaan xaflada dhigtaan waxyaabahaas kale de wax la naga leen ku yaqaan culture ahaan muslimin ahaan hadii aynu nahay lagu ma yaqaano kuma bartamaha masaajidada Boorama de waa la socotaan waxyaabaha ugu badan ee bariyahan ugu dambeeyay muxaadaraadka looga qabanayay waa sidii muslimiintu ay hortagi lahaayeen in xaflada dhigtaan sanadka u dabaaldegaan waa tahay walaalka qaali aad baad mahadsan tahay la joogtaa gabadhaas aan weydiin doono su'aashii hore bay noogu socotay marka hore waxaan kugu soo dhaweynayaa channelka Happy Films barnaamijka ay wadato ee la magac baxay kaftan iyo qaraaxo adigoo ku bilaabay magacaaga bismillaahir rahmaanir rahiim
magacaygu waa Dekan Maxamed Warsame oo kuna nool magaalada Boorama haddaan barnaamijka idinla qayb galo si waan soo dhaweynayaa barnaamijka waa tahay waxaan ku weydiinayaa 2020 wixii uu saameyn kugu yeeshay ama se waxaad ku xasuusatid maxaa kugu la yaab badnaa aragtay inta 2020 lagu jiro kolay toolo maanta waa last day baan ku jirnaa maalinkii ugu dambeysay 2020 maxaad kala kulantay 2020 bismillaah 2020 ku caqabad badan buu yeeshay sababtoo ah waxay mid corona virus xanuun leedahay corona virus oo kala xidhay caalamkii isku furnaay fariiga ah oo kala soo hal mar maalin kaliya noqday corona wuxuu noqday sanadkan 2020 wax aan la iloobi karin sababtoo ah adduunyada meel walba la mushaaxay baa fariin noqday kala soo meel xidhan 2020 ku arqalada kaliya ima saameeyne caalamka wadanada ugu dhaqaalaha badnaa ayuu saameeyo suuqyadoodii la buuxay shimbiraha ka duulayeen inaga oo Boorama Soomaaliland oo dawladda isku magacaawdana maxaad u maleynaysaa corona saameyntii nagu yeelanay weyn buu nagu leeyahay waa tahay walaashay aad baad maasan tahay Degan sidoo kale waxaan ku weydiinayaa 2021 maxaa ku qorshaysan 2021 aniga nafsi ahaan waxa ay qorshaysan insha Allah ganacsigayga kaloosilka noqday inuu obi noqdo hadii corona uu baxo on horumar dhaqaale sameeyna hadii Ilaahay qadaro insha Allah waxaan leenahay sanadkan Ilaahay nooga dhigo sanadkii khayrkiisa xambaarsan ee bashbash iyo barwaaqaan kala kulan sanadka horena waxaan rajaynayaa insha Allah in Ilaahay corona inta inaga xidho khayrkiisa ina siiyo amiin balana Ilaahay inta corona waxaan rajaynayaa inuu corona waji cusub u yeesho wajigiisa cusub ku caalamka ka sii dhawaaqaya inaga hayo laakiin corona chance bulaayo sanadka ay tibaaban ku shaqeynayno guriga dhexdoodan ka shaqeynayne xaluu saar qaladna uu keena faa'iidana uu keena marka faa'iidadaas aad kala hadhaado faa'iidaan kala hadho anigu technology aan guriga joogo shaqadan dibadda ugu baxayaan guriga ku qabtaan ka helayba marka dad badan arqalad buu ku noqday dad badanna wuxuu ku noqday fursad buu noqday guriga uu ku joogaan aniga muddo fursad bay noqdeen guriga ku joogo aad baan salaamaya bahda kaftanka islaamay magacaaga محمد عبد الله موسى محمد عبد الله موسى waan kugu soo dhaweynayaa channelka Happy Films waxaan ku leeyahay 2020 maxaad kala kulantay se maxaa kugu la yaab badnaa waxa igu la yaab badnaa waa horta waa sanadkii igu mucjiso badnaa Boorama waxaan joogay ilaa Ramadaan waxa dhacday in 12 nin oo waxbaan dhigay oo meel fog ka yimaada sida bariga fog oo kale ay gacan guri intay kreestaan 12 nin inan yaroo 16 jiro 17 jiro loo geeynayo oo ku leeyeen quraacda nagama gaarsiinay sida guriga nala seexo oo halka ay la diganta waa 12 nin iyo inan yar صح معاس واحد سدوا ضمير حمو مع umada waxa ogolaato oo iyagii hadana ku leeyihiin waan ku ururnaa diwaan runo hada 12 waraabe yalla hada qolis kugu soo xidho oo bari tiraado iyada caafimaad qabtaan oo imani ma dhacayso xagaa wax weyn baa ka dhacaya markaan iyo ضمير xumadaas waxa lagu ilaa ay hada guriyaha degan ilaa 100 way gaarayaan 10 ilaa 12 ay u degaan guri kasta wax weyn saas inay yar uga haystaan حتى إنما إيش كي 2016 كي إن الجوري قرعان أي دقيقين وإنه يروم ماشي شوكتا كي ولا السعودي وكل كان أقول خلاص ساحدة مركا إيج مقالده وحكينا عيانين أو مقالنا ساعنا ناق وقبل قل ساحنا يا أفر الله تك ساعدود هالكا وشوكتو حلو ترى حتى مسكحة بك قبصنا يا أنتوا وحيو كدوبه يقول فول يا أوه هنشبان ومع لبيه تمك هي قبلنا قنعي لهذان صح ويسكت حتى كل بلكي أي كجي مادين أو يران waxa Boorama ka soo waxa kugu la yaab badnaa marka 2020 maxaa ku qorshaysan waxa ay qorshaysan horta nabiga kaleey salaatu wasalaam wuxuu yiri ninkii macsiya arka waanad ka xumaataa waanad ka dheedhisaa hadii kala diyuus baad noqonaysaa diyuus la yidkhul janna marka ina waxa ka dagaalamo oo waa kii nabiga xadiiskii nabiga ahaa hadaad xumaantaas oo kala aragto gacanta wax kaga qabo hadaad kii kari weydo ma garanaysaa in afka wax kaga qabo adcafu iimaan in niyada ka nacdo marka xumaantaas in loola dagaalami lahaa diyuusna la yidkhul janna hadii kala diyuus aan noqonayna cibaadadeena iyo diinteena waxba ka dhiman ilaa isa fuskigaas ka qabanay waa sax waan iska qabanayna waqtiga aad noogu gabaabsi noogu ah oo barnaamijkeeni maanta waxaanu ku soo koobaynaa intaas ayuu noogu egyahay waqtigiina way naga dhacay waxaan leenahay asxaabta intiina daawanaysa iyo intiina daawan doontaba fadlan hadii mar kale noo xasuusinaya subscribe sar channelka hadii markii kugu horeysay aad soo boqotay ay tahay like na saar siina share gaar si dadweyne badan u gaadho waxaan nii sheegayaa barnaamijka kaftan iyo qaraaxo toddobaad walba maalinka ay khamiista tahay galabnimo ay barnaamijkaasi noo soconaya waana inoo balan suuqa Boorama meel walba ay ahaataba maalinkaasna laga soo qayb galo waxa kale oo nii sheegayaa xubbiba inta kale inoogu daraysa xubbi ay mikrofoonka inoogu wareejin doona xubbi xarago aad iyo aad baad maasantahay afjarno aad iyo aad baad maasantahay asxaabteedana aad iyo aad baan wada salaaminaa meel kasta joogaan waqtigii insha Allah gabagaba wayaan waqti salaad ayaan joognaa waqtigina aad iyo inoogu yar yahay aad iyo aadna waad u mahadsantiin insha Allah sida hore loo soo sheegay waxay noo balanaa habeen kasta oo maxaa la dhahay jimca soo galaya oo khamiisii dhamaanaysa insha Allah idanka Ilaahay
hadduu ilaahay isku keen gaarsiiyo nabad iyo barwaaqo waxaan rajaynayaa inaynu sidan oo kale u kulmi doono insha Allah hadduu ilaahay idmo waxaan idin leenahay intiina maqan iyo intiina joogto aad iyo aad baad idin salaaminaa intii hore noogu xidhnaydna waxaanu leenahay aad baad mahadsantihiin inta imika soo dhawaateen waxaan leenahay soo dhawaada subscribe-ka iyo like iyo share-tuna waa halkiina sana waxaanu leenahay mogaanina dhacdhacda subscribe waa dhankiina leenahay subscribe waa dhankiina anagu insha Allah mar walba idin heegan idin nahay dabcan iyagan mar walba heegan anagu aanu nahay idin diyaarsanahay sababtan mid baan ka ilaaway okay soo daa mid waliba barta u beerka u jiifan ku salaamaya oo waan kugu ogaa midaas ana sidaas aan jaku ahay dabcan aad baa idin salaamina waxaan idin leenahay jimco mubaarak iyo sanad wanaagsan insha Allah sanadka sanadkiisa farxad iyo faafaan Allah idinku gaarsiiyo sanad khayrkiisa xambaarsan Allah inooga yeelo aamin 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 on baraare